Asalaamu calaykum. Maanta mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay anshaxa. Anshaxu waa habdhaqanka asluubta ee bulshada dhexdeeda. Habdhaqanku wuxuu koobayaa habdhaqanka, xushmada iyo caadooyinka. Habdhaqanka waxaa ka mid noqon kara xeerarka xiriirka, xeerarka labiska iyo habdhaqanka cuntada. Ku xadgudubka anshaxa waxay keeni kartaa isfaham la'aan, isku dhacyo iyo dambi. Fahamka iyo ku dhaqanka aadaabta ayaa lama huraan u ah dhisidda xiriir wanaagsan iyo bulsho isku xiran. Anshaxu waa wax waliba. Doorka anshaxa uu ku leeyahay horumarka qofka. Anshaxu waa inaad koontarooshaa naftaada, waa inaad samaysataa hadaf kuu khaas ah, waa inaad samaysaa ficil joogto ah oo ku gaari kartid hadafkaaga. Anshaxu wuxuu bedelayaa noloshaada isagoo kugu caawinaya inuu dhiso dabeecad wanaagsan ama joojiyo dabeecad. Horumarka qofka anshaxu wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah sida inuu qofka koontaroolo naftiisa, ahaw ganacsade, wariye ama shaqaale. Anshaxu waa muhiim. Anshaxu wuxuu muhiim u yahay inaad gaarto hadafkaaga shaqo. Qaybta ugu muhiimsan anshaxa waa inaad ka warhaysaa naftaada, waa inaad ka warhaysaa fikirkaaga, dareenkaaga iyo dabeecadahaaga. Caqabadaha anshaxa. Dhammaanteena waxaan la kulannaa caqabado. Caqabado badan waxaa ka mid ah caajiska iyo dhiirigelin la'aan. Haddaad rabto inaad la dagaasho caajiska, waa inaad fahantaa waxa sababay. Caqabadaha kale waa inaad ka cabsataa guuldarada. Waa inaad fahantaa muhiimadda xanaaneynta nafta, sida inaad seexato hurdo kugu filan ugu yaraan 7 saac, inaad si wanaagsan wax u cunto, marna inaad qaadato waqti nasasho iyo sidee u dhisi kartaa habdhaqankaaga. Waa inaad ogaataa awoodahaaga iyo meelaha aad ka daciif tahay. Waa inaad dejisaa hadaf, bedel aragtidaada rabitaanka, cafi naftaada ee hore u soco. Waa inaad sariirta aadaa xilli hore. Waa inaad jartaa wax waliba oo ku mashquulinaya. Waa inaad diiradda saartaa wanaag. Orahyada ay ka dhaheen dadka caanka ah edbinta nafta. Nambar 1, haddaadan naftaada ka guulaysato, waxaad ka guulaysanaysaa adduunka. Nambar 2, haddaadan habdhaqan lahayn, guushu waa mid aan suurtagal ahayn. Nambar 3, guusha ugu wanaagsan ee ugu horeysa waa inaad ka guulaysato naftaada. Nambar 4, inaad naftaada xushmayso waa miraha dishibilinka. Nambar 5, riyadu marnaba ma shaqaynayso haddaanan la qaban. Nambar 6, farqiga u dhexeeya guusha iyo guuldarradu waa dishibilinka. Nambar 7, habdhaqanka wuxuu ku xasuusinayaa waxaad rabto. Nambar 8, habdhaqanku wuxuu keenaa xorriyad. Nambar 9, qofna xor ma aha haddaanu amar siinin naftiisa.